horta xaqiiqada kama hadlayno maanta sheekadu waxay taagan tahay Soomaaliya oo ictiraafta mooyee wax ma noqonayno xaqiiqadu taama Soomaaliya military iyo awood iyo xirfad ay ku qaadatay mas'uuliyadda Somaliland horta ma jirto waa hadiyad la siiyay iyadoo dawlad ba dhisan ayaa Soomaaliya la siiyay yaa siiyay baa su'aashu taala exactly mushkiladda Soomaali qaybsigeegii late maxaan ku idhahaa 18th century wixii bilaabmay ee layna manipulate gareynayay bay tanina tii ugu dambaysay tahay waa Mareykan iyo Ingiriiska iyo EU-dii iyo baa hadiyad ku siiyay Soomaaliya waxay xaqiiqadii ayadu haysatay maaha iyadoo dhisnayn oo fictional state jiro ayuunbaa la yidhi idinkaad halkaasaad ku xidhantihiin waa xaqiiqa maxaa maanta yaalla waxaa la yidhi nin waalan baa la yidhi bal geelan kaxeeyo meel heblaayagee dariiqii intii ku sii siday ayaa fikradii ku soo dhacdayoo awrka u horreeya ayuu ka u dambeeya farurtii ugu xidhay aasuu iska dhex seexday ilaahow jid u fur buu yidhi hadda isagii baa ku xidhay sidaasay sarkal u socdaan ilaahow jid u fur buu haddana halkaa la jiifaa liidarskeennu ilaahow jid u fur taana kumaba daraan iyagaa iska dhigaa inay yihiin kuwii xal hayoo sarkalkaa un baynu ku jirraa war xaqiiqadu waxa weeye run haddaynu ku hadlayno historical facts baa jiroo waa la isku keendilayaa innaga faruurihii la isku keen xidhay we have not found a solution wadahadalkan anigu waan joogay qayb baan ka joogay xirsi dadkii iyo maxamed biixi yoonis iyo dadkii ku jiray baa ahay ee intoo dhan la socday anu kii Jabuuti ee bilowga kala tagu ku soo baxay baan taagnaa waan joogay Somaliland waxay la timi war Turki nama dhaqi karto Turki uun ku xidhnaada ee adduunyadii kale aanu ka qayb gelinaba hadalku ah laba waxyaabihii horeynu ku heshiinay taa airspace-kana ahaatee waad jabiseene wax dee la isku halayn karo la kaaleya maxaa dhacday xirsiisdaa uu taabtay horta intii ka horraysay shirarka iyo wadahadallada Somaliland qaar ka socda oo xamar ka yimi kumay jirin heshiis baa yaallay hadalkaa markii Jabuuti la yidhi maxaan ku idhaahaa go'aanka weliba si adag baa loo hadlo anigu waxba ku dheeraan maayo taasoo iska aflagaadana ahayd markii waxaan socdeen aakhirkii waxa la isugu yimi Istanbul oo waxa lagu ballamay Istanbul in la yimaado marka maxay samaysay Soomaaliya waxay samaysay si loo joojiyo doodaas ayaa qaar Soomaaliland ruulkii hore jiray baa la jabiyay waxa la keenay 3 qof oo Soomaaliland ka socda ayaa la keenay Soomaaliland marka maxay samaysay tiimkii Soomaaliland waan joogay Maxamed iyo Xirsi iyo waa wada joogeen waxa la yidhi ma hadlayno ruulkii baa jabiseen ujeeddaa jirta aad u jabiseene dee ilaa aynu sidii hore wada hadal u wadno mooyee ma gelayno halkii baa hadalkii ku joogsaday funny thing annagu Hargeysa markaanu ku noqonnay ma waxaad aragtay wada hadal la socdo oo dadku ku farxaan in markay burbureen Somaliland airportkii markii aanu ka degnay waa ka Maxamed xirsi waa joogay qaabilaadda Somaliland lagu siiyey waxaad moodaa inaad xurriyaddii baanu helay bagaa diideen waayo haddii aanay diidin delegationkaasi haddaanu diidin xukuumadda qudheedu khatar bay ku geli lahayd waayo quudhsi baa yimi waxa yimi wadahadal baanu gallay waxbaan isku hadlaynay sidiiba haddana nalagu diiday marka anugu dhakhaatiir Egyptian oo aan wada shaqaynaynayba dariiqaa la soo maray ambassador iyo halkaa ayay ku leeyihiin international hospital what happened maxaa dhacay dee dagaalkii baa burburay hadalkii baa burburay yeah it doesn't make sense so much laakiin dadka it made sense waxaan ka wadaa adeerow circle baynu ku jiraa anugu waxa u dan Soomaaliya Somalilandna u dan
sarkalkaa sidii aynuga bixi lahayn ee dadkeenna aynuga saari lahayn ayaa muhiima anugu waxaan qabaa oo kale siyaasiyiintoo keliya ee xilka haya kuwa xilka haya uun haddii loo daayo sheekada mid waliba intiisaasuu ku adkaysanaya oo odhanayaa haddii aad samayso marka waxaan u socdaa madashan oo kale iyo intellectualska iyo inay maskaxda furaanoo sidii sarkalkaa awrtu ku jirto ilaahu jidii furma soconayso oo keliye waa inaynu inana ka shaqaynaa baan qabaa